anugu cartaan joogay dadkii carto wax ka abaabulay baan ahaa 20 sano waxa lagu jiray doorasho dadban oo afar iyo bara 20 sano dawladdu waxay u dhaafi weyday bil Soomaaliya wax kale ma ahayn dadkii dalka iska lahaa oo dawladda lahaa baysan doorashadii u dhaadhicin oo awoodoodii loo dhaadhicin ee kooxo yar baa hadba inta meel isugu yimaada waaga hore dibadda lagu shiri jiray diyaarad baa lagu soo qaadi jiray koox ismagacawday oo dawladda annaga dawladda ay dhigi jiray hadda sidii oo kala dhacday waxa weeye 8 qof weeye dadka masiirka dalka hadda gacanta ku haya oo arinta doorashada waa madaxweynaha waa ra'iisul wasaaraha waa shanta gobol waa gobolka Banaadir 8daas qof baa mas'uuliyadu saaran tahay inay dalkan markii hore hadii la khaldamay ku soo celiyaan doorashadii ahayd qof iyo cod oo xaq ahayd inta xeer oo la jabiyay iyo guddiga qaranka doorashooyinka oo dastuuri ah oo muxuu ahaa guddi qaran oo shaqeynaya oo laga talaabsaday waxa weeye muxuu ahayto meel ka dhac weyn oo la galay weeyo umada meel looga dhacay anigu sideedaba xisbi garsoor la yiraahdo madax ka ahay wuxuu ahaa xisbiga ugu horeeyay oo la siiyo shahaadadii muxuu ahaa aqoonsiga maalinta laga bilaabo 2013 ilaa maantay hawl iyo saacado iyo hurdo la'aan iyo dhaqaale aan ka yareyn malaayiin baan gelinay min calawla ilaa buulaxawo ilaa muxuu ahayto meesha la yiraahdo dhobley xafiisadeedu waa ka fur tuulooyin bay xataa ka furay iyo degmooyin inta kharash galay baad garan kartaan maalin dambe la yiri waxba kama jiraan wixii oo wixii xaq ahaa baa la diiday oo xaq darro la aaday sideedana doorasho maaha doorasho dad baa wax la yiraahdo ma jiraan waxa weeye xulis qabiil oo qof soo xulayo oo lacag ku soo baxaya oo qaraabakiil ku soo baxaya ilaahay baa ogaa 30 sano Soomaaliya siyaasadan ku jiray markii ugu horeysay aan qabiil wax ka doonto waxay ahayd 2016 tii iga raacdana anigu inaan ugu sahlanaa baa suurtoodo dadka Soomaa dad baa lagu laayay dad baa malaayiin bixiyay dad baa lagu korobti gareeyay waxa weeye arrin fiican ma ahayn arrin dalka dib u dhigayso weeye waxa weeye marka hadaad noogu yeerteen inaan annagu xillibaana idin gaarsiino warkiina iyo codsigeena gaarsiino baarlamaanka oo baarlamaanku uu ku soo celiyo wadadii saxda ahayd waa la habaabay habowga inta laga soo noqdo ummadda Soomaaliyeed in loo naadiyo doorashooyinkii xaq ahaa oo ahaa qof iyo cod waa qaadna arintaas garbaan noogu leeyahay ogaada haddii sidaan hadda wax ku sii socdaan waxa khatar ku jira midnimada ummadda Soomaaliyeed baa khatar ku jirta dawladnimadii baa khatar ku jirta anigu waxaan joogay 9kii markii la yiri mucaaradkii dawladda hal heshiisiyo dawladda Talyaaniga gobol dhigtay waa la diiday dawladda Masar baa dhigtay waa la diiday waxa lagu bedeshay inta Itoobiya laga soo duulay dawladda in la burburiyo ogaada 10 sano dalka intiisa kale oo aan nabadi ka jirin oo dagaal ka socdaan baa xamar oo caasimada lagu noolaa oo dawladda Soomaaliya jirtay waayo waa madaxii xamar Washington magaalooyinka ugu yaryar bay ku jirtaa Mareykanka laakiin waa madaxii dalka haday burburto New York 20 milyan ku nooshahay baa burburaysa muxuu ahayto magaalooyinka ugu waaweyn ee dalka oo dhan baa burburaya waxa weeye hadaan laga dayn sida socota consequences ama natiijadu waxay ahaanaysaa in dalku burburo mana qaadi karo Soomaaliya ma qaadi karo haduu burburtana ilaahay naguma keenay isku soo noqon mayno waayo 30 sanaan maraynaa inta yareedo qabiiladu dirireen waa ka soo kaban la'na bal maanta ay wax kala dhacaan ka waran 40 milyan oo Soomaaliya ma ahan jamhuuriyadda Soomaaliya kaliya Somali nation ummadda Soomaaliyeed oo dhan bay jamhuuriyadda Soomaaliya abiyo hooyowta Soomaa 40 milyan waan dan laga lahayn waysan dadka iyaga ahayn waysan dadkii dalka lahaa ahayn waysan dawladdu iyagu ahayn sabab lagu nixi waayo oo waliba cudur hayo dilaa oo khatar ah oo abaar hayso oo amni darro hayso oo boob hantidoodii la boobahayo bad iyo biriba ay hayso waa ajnabi boobahayo war maxaa dhacay dadnimadii islaamnimadii wadaniyadii hal lagu soo celiyo dalka doorasho qof iyo coda
tii hore oo xaqdarrada ahayd oo xataa ummadda Soomaaliyeed midabta koorka ku ahayd oo qaar loo bixiyay dadka Soomaaliyeed nus qof kaamil ma aha la yiri ma shaqeynayso awal ba xaqdarray dooni mayno ummadda Soomaaliyeed dooni mayso annagu hadaan nahay baarlamaanka Soomaaliya mas'uuliyadaas aad noogu yeerteen ballan waxaan idinkaga qaadaynaa inaan xukuumadda iyo baarlamaanka gaarsiino aad iyo aad u mahadsantihiin Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier